السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan meel kasta joogtaan waa mar kale barnaamijkii taxanaha caafimaadka qaybtii shanaad. qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa cunooyinka beerka u wanaagsan ee markaasi ka caawinaya beerka xagga sifaynta sunta iyo weliba qashin saarista. ugu horeyn beerku wuxuu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan jirka bini'aadamka, wuxuuna qabtaa hawlo fara badan oo ka mid tahay inuu burburiyo ama jirka ka saaro sunta soo gasha jirka. wuxuu kaalin mug leh ka qaataa shaqada habdhiska difaaca iyo weliba sidoo kale dufanka dheeraadka ah ayuu jirka ka saaraa. maadaama ay aad u bateen cunista cunooyinka dufanka leh, sidoo kale cunista cunooyinka shiilan iyo weliba cunista cunooyinka warshadeysan, dhammaan kuwaasi waxay culays xoogan saareen xagga beerka marka wasakhda laga saarayo, taasoo sababaysa inuu beerka shaqadii ku badato kadibna uu shaqadiisii caadiga ah ama shaqadiisii normalka ah ay yaraato. sidaa daraadeed waxaa muhiim ah inuu qof walba ku dadaalo cunooyinka beerka ka caawinaya inuu si fudud iskaga saaro qashinka iyo weliba sunta. haddaba halkan waxaan ku xusi doonaa cunooyin u wanaagsan xagga beerka sifayntiisa iyo weliba qashin saaristiisa. cunada ugu horeysa waa toonta. waxaa toonta ku jira maadada la dhaho allicin, waxayna sare u qaadaa dheecaan burburiyaha beerka, taasoo muhiim u ah xagga sun saarista beerka. waa cunada loo yaqaano liin balbeelmaha amase waxa u taqaanaan liinta balbeelmada ah. waxay hodan ku tahay maadada la dhaho vitamin C iyo weliba maadada kale ee jirka ka saarta sunta ee loo yaqaano antioxidant. haddii qofka uu isticmaalo hal koob oo liin balbeelmo ah oo cabitaan ahaan uu ka sameysto, waxay kaga filan tahay inuu beerka ka caawiyo xagga qashin saarista iyo weliba sun saarista. cunada saddexaad ee ka caawinaysa beerka xagga sun saarista iyo weliba qashinka waa cunada la dhaho karootada. cunista karootada waxay sare u qaadaa shaqada beerka iyo weliba soo saarista waxyaabaha jirka uusan ka maarmin, sababtoo ah karootada waxaa ku jira maadada la dhaho beta carotene. shaaha cagaaran waxaa ku jira waxyaabo jirka ka caawinaya inuu ka saaro qashinka ama yareeyo sunta iyo waxyaabaha aan faa'iidada u lahayn ee jirka markaasi dhibka u keenaya. waxyaalahaas shaaha cagaaran laga helo waxaa kamid ah maadooyinka la dhaho flavonoids iyo catechins. waxyaabaha jirka dhaawaca gaarsiiya amase shaqada xubnaha jirka kala duwan yareeya waxaa ugu horeeya sunta ka dhalata falgalada ka dhaca isla jirka laftirkiisa. haddii suntaasi isla jirka laga suulin, waxay dhibaato u keenaysaa beerka. sidaa daraadeed shaaha cagaaran wuxuu yareeyaa inuu markaasi ka takhaluso waxyaabahaasi sunta ah ee jirka soo galaya. sidoo kale shaaha waxaa ku jira maadada loo yaqaano antioxidant, waana sababta shaaha cagaaran uu kaga duwan yahay amase kaga fiican yahay xagga caafimaadka shaayada kale ee la cabo. afagaadhada waa miro waxtar u leh jirka, waxaana laga helaa maadada la dhaho glutathione oo muhiim u ah sun saarista, gaar ahaan sunta daawooyinka ay jirka ku reebto. tufaaxa wuxuu horumariyaa caafimaadka beerka, waxaa ku badan maadada loo yaqaano pectin oo ka caawisa mindhicirada jirka inaysan soo nuugin waxyaabaha sunta amase waxyaabaha jirka markaasi khatarka ku ah. huruudda waxay u fiican tahay caafimaadka beerka, waxayna caawisaa inuu beerka iska saaro qashinka si fudud. lowska amase waxa loo yaqaano walnutska waxaa ku jira maado la dhaho glutathione iyo weliba omega 3 fatty acid oo ka caawinaya xagga nadiifinta beerka amase beerka inuu si fudud isku nadiifiyo. koostada amase waxa loo yaqaano spinachka waxay beerka ka caawisaa soo saarista qarasta beerka uu soo saaro, taasoo muhiim u ah qashin saarista iyo weliba dheefshiidka cuntada dufan kale. kaabajka iyo weliba sidoo kale broccoliga waxay ka mid yihiin khudaarta beerka u roon. kaabajka wuxuu kor u qaadaa shaqada waxyaabaha dheecaanada burburiya ee loo yaqaano enzymeska, kuwaasoo hawshoodu tahay inay qashinka beerka ka saaraan. saliidda saytuunka waxay kor u qaadaa caafimaadka beerka iyo weliba waxay ka qayb qaadataa nadaafada jirka iyo inuu beerku iska soo saaro amase iska soo sifeeyo sunta soo gasha jirka. shayga ugu dambeeya ee markaasi ka caawiya beerka xagga qashin saarista iyo weliba sun saarista waa waxa loo yaqaano lindhanaanta. waxay caawisaa shaqada beerka, waxayna dhalaalisaa waxyaabaha halista ku ah ee markaasi soo gala beerka, sida aashitada beerka soo gasha ee loo yaqaano uric acid iyo weliba sidoo kale dufanka beerka soo gala. sidaa daraadeed waxaa muhiim ah
qofka inuu isticmaalo subaxdii hore ama aroorta hore biyo liin dhanaan lagu daray oo markaasi qandaca ama biyo diiran si beerka ay ugu fududaato xagga nadiifinta ama beerka uu si fudud isaga nadiifiyo qashinka iyo waxyaabaha sunta ah ee soo gaara beerka.